ninkii nool waxbaa dhayga geliye assalaamu calaykum waa barnaamij aan ugu magac darnay barnaamijka dharaaro. barnaamijkan maanta waxaynu ku eegi doonaa dalka China. haddaba si aad noola socoto nala soo raac diyaaradda ilaa aynu ka degayno caasimadda Beijing ee dalka China. dalka China waa waddanka ugu weyn bariga Aasiya, waana waddanka saddexaad ee ugu weyn adduunka oo dhan. dadka ku nool China waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 1.3 bilyan oo qofood. cabirka uu ku fadhiyo dhul ahaan China waxaa lagu cabiraa inuu gaadhayo 9.6 milyan oo laba jibaaran, wuxuuna noqonayaa waddanka saddexaad ee ugu weyn caalamka. dalka China wuxuu caalamka intiisa kale kaga duwan yahay qodobo aynu ku taaban doono dhowr qodob. dadka Shiinaha iyo Kuuriyaanka Jabaanka maaha kuwo isu eg ama la isku khaldi karo. waxaa dhici karta in indhayarka dad badan ay isku khaldaan, balse waxaa si fudud loo kala sooci karaa dalalka aynu ku sheegnay Jabaan, Kuuriya iyo China. dalka China ma cunaan ayda ama hilibka bisadaha, laakiin taasina kama hor imanayso sharciga Shiine in aad cuntay ama aad ka tagtay bisada iyo eyga. waxaa dalka China ku taalla magaalo yar oo sanad walba qabanqaabisa siday u joojin lahayd ama uga hor iman lahayd cunista eyga iyo bisadaha. taasina dadka China maba sii tadaakhulaan. haddii aad maqasho dalka China, markiiba maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya dalka China inuu yahay waddan alaabtiisu aad u liidato ama tayadiisu ay low tahay hooseysana. mana aha wax kasta oo uu soo saaro China ama laga iibsadaa in uu yahay kan adduunka ugu qiimaha liita. waxaa jira in ay soo saaraan adduunka alaabada ugu qaalisan uguna tayada fiican. luuqadda China waa luuqad aan lahayn wax xuruuf ah, waa mid cod ah oo isku mid maaha luuqadda Kuuriyaanka iyo tan Jabaanka. dadka qaar ayaa waxay sheegaan amaba warbixinahooda ku qoraan in ay dalka China ka soo bixi doonaan dadka lagu magacaabo Ya'juuj wa Ma'juuj. taasina wax caddayn ah ama wax sumad ah looma hayo. Ya'juuj wa Ma'juuj waxa weeyaan kuwa qur-aankeenu inooga warramay ee aakhiru zamaanka calaamadihiisa ka mid ah.